ومؤامرات وحس فريم قرينا وح مؤامرات اللي يرادو وأنا سمينا يعني والله بالله طلع نسجل وحن شيل أيها سيدا وفي عن إن أهندل الجريان أمي سنة وياي لما كانوا واحد جرا كلن عبد حاشي iyo xubno kale aqal ka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo cabdi xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa aad ii sheegaysaa cabdi xaashi oo sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen arrinkaas waxbana ku darimaha waxbana ka dhimaha sida cabdi xaashi u sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyo waxaas aan sheegnay waa run been ma ka shalaynaysaa xariga xubnaha madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga afiyaan rabaan ku yiri laakiin dadka kale waxa jirta in qalbi dhagax ku dhiisan oo fiisa in laga caawiyo dawladda Ethiopia loo dhiibo oo raali ka yahay si Ethiopia uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in la qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan in golaha wasiirada fadhiisiyaan kaasa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعند الله وديال waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno ambassador Abdullahi Maxamed Ali Sambalool taliye hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya sidoo kale soo noqday ambassadorkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka UK waraysigani haddii ay yiraahdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadal hayn dib u soo uga timid kiiskii qalbi dhagax oo mar dawladda dhexe Soomaaliya ay ka soo xirtay gaalkacyo sidaasina loogu wareejiyay dawladda Ethiopia waraysi ay bixiyeen qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa hadal hayn fara badan ay ka dhalatay inagoo eegayna xogta looga baahan yahay in laga helo arrintan ayaynu waxaan xafiiskiisa ku booqanay ambassador Sambalool oo aan arrimahaasi wax ka weydiinayno ambassador waxay noo tahay fursad mar kale inaan xafiiskaaga joogno intaasi kadib 72 saacadood ee la soo dhaafay baraha bulshada iyo warbaahinta waxay aad u hadalhayeen kiiska qalbi dhagax oo mar kale soo ifbaxay waxaana ka hadlay afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in kiiskaasi iyo habkii loola tacaamulay xog far badan aad adigu ka bixinaysay kulug lahayd kulamo madaxweynaha iyo cabdi xaashi iyo xubno kale sanatarada ah goobjoog aad ka ahayd maxaad inaga la wadaagi kartaa arrimahaasi بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنتين تيمك دلسن runtiina mawduucan waa mawduuc timely ah ama waqtigii ku haboona in laga hadlo ay joogto anigu horta muddoba arrinkan waa arrin xasaasi ah waana ka leexleexanay si toos ah uga hadlo anigoo ilaashanaya my professional credibility because taliyihii sirdoonkan ahay mas'uuliyadda koobaad waxay tahay sirta qaranka xafiiskaas intaan joogo inaan ilaaliyo sirtaasna waxaa ka mid ah go'aamo waaweyn oo saameyn ummadda Soomaaliyeed ku leh ama ha qaldanaadaano ama ha saxsanaadaano muddadii 3 sano la soo dhaafay waa maalin kasta waa farta afka la gelinayay si aan arrinkan uga hadlo hadda bacdama uu u muuqdo mashruucan ama hadalkan musalsal ma dhamaata ah anigoo tixraacaya hadalkii maaldoweed adeer cabdi xaashi uu sheegay horta anigiisa u fahmay sida cabdi xaashi hadalka uu dhigay dadka u fasiranaya anigu uma fahmin inuu mas'uuliyadda bilaaw iyo dhamaad Sambalool uu saaray sida cabdi xaashi uu sheegay anigoona hadda mana ku beeninayo sida loo fasirtay ma si inta uu sheegay ma beeninayo waa runtiis horta aniga iyo asaga iyo madaxweynaha wada hadalkaas inuu dhaxmaray waa run laakiin su'aashu waxay tahay horta meesha cabdi xaashi ugu la kulmay xagee ahayd yaasi joogay markuu la kulmay qalbi dhagax markaas ka hormaa la dhiibay mise kadib ayaa la dhiibay asagoo oday Soomaaliyeed oo arrinka laga tala geliyay oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ku soo baxay ayuu ahaay muxuu ka qabtay haddii uu nin wadaniya ama xaldoon yahay markaas muxuu intervention u sameey waayay sida asagaba ay uga hoos bixi karto taladu ay horta qof kasta mas'uuliyadda oo Soomaaliyeedna talada uga hoos bixi karta horta maqaldam waa ilaahay waxaan rabaa marka rekoorka arrinkan inaan sadgareeyo oo aan ifiyo shaqada nabad sugidda horta waxay tahay iyo doorka ninka madaxda ka ah marka ay timaado qadiyadahan oo kale muxuu yahay
horta sida malaa'igta ilaahay qaarna ay furaha jannada u hayso qaarna ay furaha cadaabta u hayso ama ay maamusho cadaabta ama ay jannada maamusho labadooduba shaqo kala fiican ahayaan laakiin dabcan shaqadii loo idmaday oo ilaahay u dirsaday haayaan shaqada nabad sugiddu horta shaqo dadka loo burcad loogu mariyo maaha maali ilaahay keeno daday soo qabataa ama wax cad ha ku hayso ama tuun ha ku haysee shaqadii horta dad soo qabasho waay hadda ka hor nabad sugidda aan joogay hadda ka hor qalbi dhagaxa magaalada joogay sooma qaban wax kastana waqti iyo qadar allaa jirta anigu marka sideedaba soo qabashaan leehay haysmana waa leehay markay timaado foreign policyga dowlad kaleeto iyo dowladda Soomaaliya wax dhex maraya horta aniga mas'uuliyaddaas mali xukuumadan u dhisan madaxweyne leedahay ilaa ma kala dowladooda fara badan oo la dhaqma aniga shakhsiyan mas'uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiska iyo mas'uuliyaddaas ay keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraay ii sheegeen mana dhiibay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka Soomaaliyeed haddii uusan is-indhatirayn wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa sidii wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shakhsiyan nin oo mas'uuliyaddiisa ka gilgilanaya maaha marka howlahan oo kale xasaasiga iyo xafiis xasaasiga aad ku dhex jirto go'aamo badan oo critical oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwa saxmaanba waad samaynaysaa anigu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagaxa iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ONLF aan ugu cudur daarto oo raali gelin buuxda oo publica aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaan rabaa Soomaaliya u sheego arrinkaas anigana igama bilaaban igumana dhamaan inuusan iga bilaabanin iguna dhamaanin waxaad cadeyn ah qalbi dhagax waxa laga qabtay gaalkacyo si kastaba lagu sida loo qabtay iyo cid ka dambeysay annada waxa waaye ama waqti kale aan ka hadli doona faahfaahinteeda haddana ma rabna inaan ii sheegeen waaba arrimo sira maba fiicnaba laakiin maalin oo la kala classification lagu sameey karo ayaa jirto laga hadli karo haddii aniga marka aan qalbi dhagax mashruuciisa uu kooban yahay qalbi dhagax gaalkacyo ayaa Cabdi Ilay iyo Ethiopian iyo ciidan Puntland iyo maamulka Galmudug ay kulligood ku baratamayeen inuu gacanta u galo Ethiopian lagu wareejiyo markaas horta gaalkacyo la joogo sanbaloosha waxaan ku takrifalay waa la dhihi karay ayada nafteedana hadda ay tahay yani doorkan ku lahay iyo taas nafteeduna calaamad su'aal ay ka taagantahay qalbi dhagax aniga waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyay bad iyo calool nibir ku jira waa ka soo baxshay xamaran keenay xamar markii aan keenay horta kadib la diray gaalkacyo lagama dirin haddii gaalkacyo laga diri lahay Cabdi Ilay inuu dilo si raqiis in loo gato qadiyad wax oo hadda oo ka faa'iido lahay gaalkacyo in laga dhiibo ninkliyaado ii sheeg maxaan ku dhahaa qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iido lahayn anigu hadda ma og waxa ku soo haray dadaa leh waa mu'aamaraad oo waxaas frame garaynaya wax mu'aamaraad la yiraahdo oo aniga aan sameeynayn wallahi billahi talaan si jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal garayaan aaminsana oo ay tahay horta koow ninkii habal la qabtay laakiin si raqiis inuu ku bixin xamara la keenay kadib xamara uu ka tagay anigu hadda aan lahayn hebela ka dambeeyay hebela ka dambeeyay hebela ka dambeeyay waxaan rabaa marka inaan Soomaalina mid iraado qalbi dhagaxna iyo ONLFna mid dhaho madaxweynaha iyo xukuumadana mid aan dhaho waxaan rabaa horta koow madaxweynaha iyo xukuumadda keyskan sida aan u handal garaynay overall mas'uuliyadiisa ka macaran kara waa mis handal garaynay si fiican waxaan oo daraamaa iyo buuq ah oo marin habaabisay ma mis handal macnaha mar habaabin maahan يعني سيدا أو لو حكمي سحق ما يسمع هين أنا سأمي سنة وحاسنا دي أما ظروف هاي وحساكينا قدرنا كفاف فاهين دونا وحنجعلها مركة بعدما
xukuumadda Soomaaliya oo NLF iyo qalbi dhagax iyo waxoo dhanba ay yiraahdeen waa argagixiso horta waxaan rabaa xukuumaddii dib in loo fadhiisiyo talada aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha siinayo waa oo ay Ethiopia oo shalayba ay terrorist NLF ugu qorray qalbi dhagax ugu qorray waa ka tiraan waa xisbi iyo dhaqdhaqaaq la aqoonsiyahay oo xalaal oo aan argagixis Ethiopia ka ahayn hadii Ethiopia shalay ay la dagaalamaysa ay maanta argagixis ka ahayn annaga buukiskeena argagixis oo aan laf kuma qornaan karto si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan laf in golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argagixisada oo aan laf xamar ay ku martiqaadaan qalbi dhagax xamar ay ku martiqaadaan si guud Soomaaliya ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo aan lafna ay fursad ay u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argagixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan taas horta madaxweynaha waxaan kula talinaa ay sheegeen waxaan kula talinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan mashruucan in iska soo xiraan raali ahawna waa wax la fahmi karo nin weyn oo qaladkiisa qartana dadku waa ka garaabi karaa waxaan rabaa qalbi dhagax iyo la filmidaan dhaho qalbi dhagax hadda kor xabsigan ugu tagay waxaan u sheegay dawladdii Soomaaliyeed tacbaanka ahayd dartiis inuu dumar rabto waxaan ka codsaday asaga uu badbaadi doonaa inuu ka faa'iidana dhici karta waxa uu hadda sharta loo maleynaaye horta inaysan dartiis dawladda Soomaaliyeed aysan u dumin oo farmaajo Soomaali haddii si kaleeto u ridayso ama ay talaab uga qaadayso kuushiya lagu qabsan karaa jiree because of qalbi dhagax inaan horta maalin ilaahay keeno aanan cusbada nabarka farmaajo lagu xoqoqay Soomaalida haddii lagu soo jeediyo apology iyo raali gelinta aniga shakhsi aan ku soo jeedo in nin hadda waxna deystan waxna disho waa tahay waa garaawis karta inuu uga garaabo guud ahaan oo aan laf iyo asagana waa rabaa haddii Soomaalida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu kalsoonidaas intii go'aankaas qaataan raali gelin ka qaataan inuu qaato waa rabaa waxaan rabaa marka mashruucan marka Soomaalida midaan leeyahay marka midaan leeyahay Soomaalida waxay tahay waxaanu drama iyo waxaanu negativity iyo waxaanu weerar waxa lagu toojar gareynaa madaxweynaha lagu toojar gareeyna ee wax ma aaminsanay Soomaalidan qaylinayso crocodile tears waayo oo hintooda waa been مواد ودانينما إني كتاي مقبو Soomaali jecel inay ka tahay ma qabo qalbi dhagax difaac inay ka tahay ma qabo qadiyad oo aan lafi u taagin inay ka tahay ma qabo madaxweynihii bacda ma wixii la kala cadeey waayo ninkaana lagu dhiba oo lagu tuhunsayaa wadananimo iyo malaha hadda ka hor game uu soo dheelaa lagu xumeeyna ma ogiye ma u maleynay Soomaalidu in ay waxaanu dhab ka tahay war Soomaaliya sideedaba ishaan waxa u yeelo waa Soomaali ee farmaajo uma yeelin farmaajina dawlad Soomaaliyeed ma difaaci karo qof Soomaaliyeed ma difaaci karo inta duruufteenu sidan ka tahay dabiiciyan dawladaha fashilmay oo wiiga ah anagoo kale taa qadiyadahooda iyo go'aamadooda masiiriga siyaasadeed uma madax banaana tusaale waxa ka soo ah adduunka dagaal ka soo dhacay Germany oo kale hadda economic power ka Europe ah dagaalkii labaad adduunka 45 inta la qabsaday ayaa qoodihii Ruushka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanku qaybsadeen ciidan ma sameeyay kartiin madaxdoodii maxkamadda la saaray dagaalkii magdhawa lagu xukumay waa la gumeystay Ruush iyo ninba meel ka degay taaka loo qaybsaday humiliation waa la qaataa ويعني waxa la qaataa ihaano waa la qaataa daruufahan oo kale dawladuhu markay marayaan marka madaxweyne Soomaaliyeed oo heybad ilaalin kara annaga duruuftan ku jirna ma jiro ninka odaga wuxuu san karin horta in lagu dhibin taas waxaan rabaa Soomaalida inaan ka codsano historyga kale aan rabaa inaan sheego waxay tahay Jarmal waa ka soo dabaalatay maxay ugu soo dabaalatay dulqaad ay ugu soo dabaalatay in ayaduna si tartiiba ay dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo madaxbannaanida u soo ceshato midnimadeedana ay soo ceshato maantana awood noqoto adduunka Yurub ka jirtana ay noqoto Japan nuclear lagu garaacay waa la qabsaday dalkeeda ciidana ma sameeyay kartiin xamaasha bisaa la yiri adduunka economic powers ku jirta dulqaaday soo yeelatay Finland waxa jirta dagaalkii labaad ee adduunka waxay la dagaalaysay Ruushka diris la dabcan waana la isku garan karaa Finland oo 6 milyan 7 milyan ah
iyo ruushoo 100 milyan ama soviet markaas almost 300-400 million people ahay waa wajahday waa qaldantay last minute haddii ka weysay reer galbeedkii gacan ayadoona jeclayna allah waxay la noqotay Hitler iyo Naziintii wax yar kadibna Hitler jawaba ayadii marka waxay noqotay they have to pay the price madaxweynihii dagaalka hogaaminaya wasiirkii gaashaandhigga wasiirkii arrimaha dibadda italiyii ciidanka waxa lagu qasbay oo geesiyaal qaran ahay waxa lagu qasbay in la maxkamadeeyo oo dagaalkii ay ku difaacayeen Finland lagu dambiyay war ahaanada Soomaaliya qof ay badeeda ilaali karta ma jirto dawladda haday jabtay madaxweynaha ayaan lagu dhibin mashruucan oo indhaha faraha ayaan loo gelin waxaan jeclahay kiiskan inuu soo xirmo shakhsiyan aniga waxaan wax aniga iga bilowda iguna dhamaada ma ahan waa wax dawladda Soomaaliyeed gib ahaanteed u yaal horta waxaan rabaa inaan arrinka aan saas u cadeeyo waxaan kaloo rabaa madaxweynaha midaan xasuusiyo aniga hadda koortilaha nabadsuugida aniga ahaa waa timar laga qaaday maxaa laga qaaday waxa laga qaaday xildhibaan xirti horta aniga xildhibaankaas ma xirin kiiska u muuqanaysa taas ma muuqanaysa meeshaan ku jirtaa meeshaan rabaa inaan cadeeyo meeshaan rabaa xildhibaan xirta aniga looga eedeeyay xildhibaankaas anigu ma xirin nin sarkaala oo meesha nabadsuugida haysta godka xiray laakiin aniga eeda qaato waxa yiri ana xiray waxaan diiday qof shaqaalahayga ah oo aniga madaxdu ahay in gacanta inta la diibto ii sheegeen maxaan ku dhahaa anigu ma xirin asaga xiray si aan jagadeeda u badbaadsado madaxweynaha sideedaba ceebay ku tahay waxaan aniga mas'uul kama ahayn hebelo ii shaqeynaa mas'uulka inuu naga naf jeclaysto iyo dadkiis oo ka naf jeclaysto dadka raba oo taageerada beentaana ay saas ay u sawiraan horta waa laga fiican yahay everything under his leadership ku dhaca sax qaladba mas'uuliyadiisa ma laga gaban karo sida anigaba taas aan u gaban oo aan shaqadeeda ku waayay waya qofkan shaqaalaha ah ee liisa ka shaqeynayay xildhibaanka xiray ma la wadaagi kartaa kuma ayuu ahaa ma hebel ma dhihi kara hadda waliba ninkaas anigana waa shaqada waa laga qaaday asagana janna laga dhigay bil kadib ebidkeena ma dhihin waana la ogyahay ebidkeena ma dhihin hebel xiray ninka la xirana waa ogyahay anigana inaan xirin kuwa wasiirada shaqada ay qaadeen waa ogaa inaan xirin ee curricular tiers ayuu ii sheegeen ayaa waxaan oo dhan laga ahaa waxaan rabaa marka sideeda general ku ahaa ma noo sheegi kartaa magaciisa mar kale aan ka hadlaa mar inaan disclose gareey ma rabo laakiin general ku qaatay waa la ogyahay waa la baari karaa dadku waa la fahmi karaa general ku qaatay anaan isku dhigay kiiskaas anoo dhihi kara hal xiro waa tuug ma yeelin face saving anoo samaysan karo jagadeeda protect gareey kara waxa yiri ninka shaqadaas ana amray ana yiri of course maybe I mishandled laakiin waxaan diidaayay in lay gacan dhaafo shaqaalahayga horta madaxweynaha dadkiisa in loo gacan dhaafo oo la yiraahdo adiga ku jirtide hebel ii sheegeen maxaan ku dhahay asaga leex sax ma sida wareysigana ku jirtay oo bixiyo gudoomiyaha waxa kamid ahayd in maalintii ugu dambeysay maalintii ku horeysay qalbi dhaga xabsiga laga soo saaray in gaariga lagu soo qaaday adiga aad ku jirtay arrimahaasi sidaas ma u jiraan horta sideedaba aniga taliyaan minimum 3-4 kun qof aan ii shaqeynaysa sabab aniga aan maxbuus qof xabsi ku jira aan toos ula macaamil horta ma jirto xaasha Allah Cabdiqaadir waxa maqla asagoo dhahaya baabuurka ninka saarnaysan baloosh inaa u maleynaa ma aha mana u tagin mana arkin aniga qalbi dhagax mana la sheekaysan baabuurna lama raacin wayahay dhanka kale waxaa jira kulan Cabdi Xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo Cabdi Xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa aad ii sheegaysaa Cabdi Xaashi oo sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen ruwan marka hore ama sheegaba fiiri run waay horta waxaan ka wada hadlay waa sheegnay arrinkaas waxbana ku darimaha waxbana ka dhimaha sida Cabdi Xaashi u sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyay waxaas aan sheegnay waa run been ma laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax qudhiisa oo fiisaha in laga caawiyo dowladda Ethiopia loo dhiibo oo raalli ka yahay si Ethiopia uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa ma aniga taas inuu qalbi dhagax dhiibay inuu dhiiban wax kale laakiin conversation ka aniga madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi xilligaas dhaxmaray sida Cabdi Xaashi uu sheegay waa run yani conversation waa dhaxmaray laakiin habka loo stage gareynayo qaldan habka loo stage gareynayo ayaa qaldan
موجة conversation كاس وارون فضلا شرحات نقصي وضع sheekaysigaas maadaama hadda ما مدحونا واب الشيء يعني وحن أرنكاس وحنا كدرين مها إن المدحونا ويري قلب دقح ما واسديبا يشيك محن كلها باسبور كان قدم حسوس إثيوبيان كا أرنكاس وارون يعني إن أو conversation كاس أنا يا عبد حنشي مدحونا أيالني وارون أضاقاس مكوبينا أرنكاس qorsho wuxuu ahaa in qalbi dhagax Itoobiya lagu wareejiyo laga saacido sida uu ku tagi lahaa I think it's a matter is not hadalka oo sida loo sheegay inuu run u yahay inuu been yahay horta waa wax kale yani aniga mar raba qastiga hadalka in sheegno sooma la conversation kaas waa yeelanay laakiin aniga hadda warkaas yani qalbi dhagax ma asagas dhiibay iyo qalbi dhagax horta qalbi dhagax is dhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibno horta marka rekorka sare loo dhigo qalbi dhagax is dhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibnay sooma ma taliyana bad sugida sambal shaqeeyay ما تسبلش waa ku sheegay reed ani waa ku sheegay foreign policy ani dawladna ani xiriir la leh Soma ani horta waxa la rabaa Soomaalidu in tira ama aniga ma dhiibin hebel a dhiibay orni arrinkaas qalab dhagax dhiibay anu qayban ka aha laakiin igumana bilaaban igumana dhamaan amarka hal soo qabto gaalkacyo yaa lahaa si toos ah ma raba in arrinkaas waa operational details waana sheegay inaan ka hadlo ma rabaan ma raba inaan ka hadlo taas iga wala soo qabto taas ma horta qarsoon waaldi ama qarsoonta waxa kale too dhan aba arkiis waa argaagtan iyo ii sheegan rafasho haddii Soomaalidu wadaniyada aad sheegtay inaysan runka ahayn oo ooyintii xaaska ay tahay kiiskan mudane maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressure-ka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay ma aniga waxaan rabaa qalbi dhagax eedan waa laga galay waa run Sooma laakiin waxaan ma ilaahay keen xamar ma kuna qof ku dhimatay يا قف وينا مارت ما كنا بصوماليا كل ما تبدأ قف وينا مارت نين كان وحواي سيدي سبب فرماجو صوماليدو مالها مركي هوريتو they thought in all the or might be small god إله ير ويها واحد كسر شر أو كحك سكر يا إنه سكحك سكر يتنورت على مضوطة ورمدحوينا سيدي دولة كستم مدحوينهد wuxuu reflection u yahay awoodda ama dhaqaale ama military ama midnimo ee dalkiisa oo dalana territorial midaysnay oo political midaysnay oo security and stable ahayn oo ciidan shisheeye joogo how do you expect in sheegeen madaxweynihiisu inuu sharaf yeesho oo waxaan difaaco maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressure-ka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay sideedaba aniga moogtahay marka aniga systemka aan ku jiro systemka hadda saddex sano laba sano ka badan ka maqana anigu ka hadlay waxaan ma aragtay maya horta hadda waxaan rabaa recordkan sidiisaba in la xiro madaxweynaha initiative-ka uu qaato ra'iisul uu qaato mashruucan lagu xiraayo anigana waxaan rabaa inaan bilaabo waxaan sheegaan waa recommendations iyo talo aan siinayo madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay eed aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in leega afiyaan rabaan ku yiri cudurdaarka aad sheegtay waraysigan qaybtoodana ku jirtay ee qalbi dhagax iyo qoyskiisa ma si cad ayaad u leedahay kiiskii xarigii qalbi dhagax ee gaalkacyo dawladda ay ka soo qabtay qaybtii aan ku lahaa ayaan si toos ah idinkaga raali gelinayaa saas miyaad leedahay of course wax kasto process-kaas oo ama xariga ama dhiibista ama dhibaato ka soo gaartaan ka raali gelin xukuumadana uga baaqay in ka raali geliyaan mashruucana iska xiraan adiga kala maanta oo dhan waa lagu dhibaa ma ka shalaynaysaa xarigii qalbi dhagax sideedaba marka xafiiskaas aan joogo wax shaqada aanay qabanaa waxaan ka shalaynaa ma jirto ani shaqo oo aan danteyda aan ku qabsanay ma ahayn wixii markaas ila ahaday dadkaan xiraa anigu furo janna ma ahayn waa kuu sheegay aniga sideedaba of course wixii ficilkaaga oo xumaanaho bini aadan ka soo gaaro dhibaato ka soo gaarto waxa la yiraahdaa walaalka candhuuftaadu gaarto gacantaada ha gaarto aad baan kaga mahadcelinayaa ani waxaan aaminsanahay shaqadeeda si honesty ah oo niyad wanaaga oo aanan ahayn khiyaano oo ku danaysa ahayn aan u fulna aniga horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiiyo farmaajo ama qof kastoo madax ay dooranayaan wuxuu yahay iyo siduu yahay kuma doortaan wuxuu ku dooranay siduu u muuqdo farmaajo horta sidii dadka Soomaaliyeed ninkay u maleeyaan horta ma ahan dadka Soomaaliyeed anoon hadal badan sameeynin ninkay u maleeyaan ma ahan nin caana madaadshaah u muuqdaa nin wuxuu u muuqdaa maskiin horta ninkaas waa nin canaan maqaata which means
laakiin waxa ka hadlaysa which means إيشيء طبعا قف كستو نول negative traits وله positive traits وله قيب حنوا كجرتا قيب سنوا كجرتا لكن أنا وحنا ربا أنا نهدف فرماجي وحوي هاي يواسيان لين نكو أملايان معهن أنت أصلا ربا أنا كسوكوا وتداول ذلك أنت يوم كسوق بجبينه يا وريسك جارك أحاء وإنه لا يلني عبد الله محمد علي سنبلول شيء تليه هرين بتسوق دقرن كصومالية أو فافين كبحنا يجي وربحنا ذا الحريرة كيس كي قلبي نجح وقدام بينتي وكوباقي إن سيدي سبا la soo xiro sidaasina looga gudbo aad baan uga mahad celinaynaa in waraysigan uu naga aqbalo daawadayaal idin aad baad ugu mahadsantihiin inaad nala socoteen sidaa iyo nabadgelyo